bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asxaabtu waad salaam meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan. waa Cayuush Cabdiqaadir youtube channelka daawanaysin waa Cayuush Cooking and Beauty. waxaan rajeynayaa inay caafimaad qabtaan. anna sidoo kale marka hore waxaan idin leeyahay asxaabay soo dhawaada, gacmo furan qalbi furan. janalkiina waaye. maanta waxaa inoo wadaa xaaladan quruxda badan, dhadhankeedana aan laga sheekeyn karin, yar iyo weynbo oo cuni karo. maasha allah tabaarakallah. ciyaalkeena hadii loogu roonaado bucbuc noqonayaan. maasha allah tabaarakallah. marka waxaan leeyahay asxaabay ka faa'iideysta, ciyaalkiina ugu faa'iideeya. waxa aan ka sameeyay iyo sidaa u sameeyay intaba insha allah waa ila arki doontiin mid kaga hordhacayo. markii kugu horeysay channelka aad soo booqata haddii ay tahayna subscribe ka saar, gambaleelka yar furo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan soo geliyo. fiidiyowga haddii aad ka heshana leegta saar. daawashadaadan waan kaaga mahadcelinayaa, aad iyo aad u mahadsantaa ku leeyahay. alaabta intaa kusoo diyaarsaday oo aan ka sameyn lahaa xalada ama macmacaanka insha allah mid aad kugu kala sheegaya hadduu ilaa idmo. waxaa ugu horeeya buskut shaahi, waa ay buskudka jeceshaa ka sameysan kartaa. xaliib nastala ama caanaha macaan, vanilya, qishto, caanaha jeceshaa, midka boodaraha, midka caaga, webin kareem, jumna keeri, xaali filiik. waa u dambeysin doonaa xaladan, koraa kaga qurxin doonaa hadduu ilaa idmo. buskudka waa soo diyaariyay, hadeer caanahana gelgelinaya, kadib saxankaa ku safaaya. haddii aad jeceshahay adoon caano gelgelinin waa safan kartaa, saxanka waa ku safi kartaa. laakiin ani waxaan rabaa wax taagtaagan hadhowta soo iiga noqonin darteeda, wax jileec oo kaaliska arag cunuga la siiyo xitaa aanan loo jijibinaynin, inta la gooyo afka isla markiiba loo gelinayo. xitaa adiga weyn xitaa aa macaansanaysid, saas darteeda marka u yeelaya ama caanaha u gelgelinaya. laakiin haddii aad jeceshahay wax oo maxay hato xoogaha qalal camal adoon caano gelgelinin waa ku safan kartaa saxanka. laakiin haddii aad jeceshahay wax oo jileec oo kaaliska arag inaa cuntid oo bujuq caanaha sidaan u gelgeli, kadibna insha allah markaa noqonayo wax taagtaagan ama qalalan. waana ku arki doontiin fiidiyowga dhamaadkiisa markaa maxay ahayd qaandada ku qaadayo kale. xaaladna sideeda waxaa fiican markasta inay qoyaan ahaato ama wax jilcan inay ahaato. saa ujeedaan waxaa isku kor saara labo. haddii aad jeceshahayna waa ka badsan kartaa, ilaa 3 camal ka dhigan kartaa. laakiin aan labadan ay ugu filan. geesaa u dhiganaya, alaabta kala soo diyaarina. waxaan soo qaatay qalaadada galaaskeedii, waxaan ku shubay hadeertaan halka xabo qishtaa ayaan ku furay, 6 xabo jubna keeri, waxba kama reebin. sidoo kale webin kareemka halka xabo kaamilka ah, qaando yar oo vanilya caanaha macaan waxaan ku darayaa nuska kalena waa iska reebaa. haddii aad jeceshahayna macaanka siyaadada waa kasii badsan kartaa. macaan ahaan haddii la dhaho intaan okay isku tahay. waxaa kaloo ku darayaa nus koob caano ah. saa ujeedaan waa soo shiiday, waa ku shubayaa xoogaa. kadib haddana buskudka la kor ka saaraa, laba xabaa isku kor saaraa. haddana inta soo hartana koraa kaga gedinayaa hal mar. insha allah waa la arki doontiin. haddana waxaa habeenayaa qaybta ugu koreysay, sida hadaayo kale la sameynaa, wax kale ma sameynayay. buskudka caanaha gelgelinaya, laba xabo la isku kor saaraa, waa isku dhamaatay. midkan aad iyo aad u iga jilcay meesha ku tahay, mala cafinin, waa lagu soo kabe.
waa dhameeyay ujeediinbo. Hadda waxaan ku kor daadinayaa hal xabo xala filig ah. quruxna waa siinee, dhadhanna waa siinee. talaajada gelinayaa muddo 3 saacadood. 3 saac kadib waa kasoo bixinaa insha Allah, waa arki doontiin. saa ujeediin waa laga soo bixiyay. jab yar aad ka tusaa, kadib waa isaga sii celinaa. waxaan jeclaa aan xalada inay talaajada ku xoogaa ay ku raagto ee waqti badan ku jirto. kulma waqti badan ay ku jirto, kulma tacabkeeda uu sii ziyaado ama dhadhankeeda uu sii ziyaado. maasha Allah ay kasii qaato. saa ujeediin qurux kaale iska arag, wayn isdhex gashay maasha Allah. saxanka ka arki kartiin geesiisa. ujeedin sida isku dhex gashay oo isku milanta maasha Allah tabarakallah. waa jilic kaale iska arag. ilmahan aad iyo aad u jeclaysan doonaan, ugu faa'iideeyay ciyaalkiina maasha Allah way ku cayilayaan. aniga caatinimo ugu shakisan tahay ama cayilaya asleeda oo kale macmacaanka ugu rono. sidoo kale ilmaha intay yar yihiin oo kale dhanaankii macaanka labadaba isku sii. haddii kale hadhowtii markuu weynaado wuxuu ku leeyahay wax macaanka ma cuni karo, waa kula laboona oo kale iyo waayo markuu yaraa ma la siin jirin maano wixii dhanaanka bas wala qabsaday. saas darteed markii inuu kula laboodo gar u leeyahay. marka waxaad leeyahay maamooyinka ugu faa'iideeyay ciyaalkiina, idinkana ka faa'iideysta. martiyo kale markay ku imaanaysana wax oo iska 15 daqiiqo 10 daqiiqo waa wax badan, waqti badan ku qaadanaysa. samaysta talaajada iska gasho. casirkii oo kale markay ku soo socdaan oo kale martida dooradii oo kale samayso talaajada iska geli. maasha Allah tabarakallah. saacadahaas yarna kaale iska arag talaajada kugu sii maxay ahayd sheek ee qaboobi ee kaale arag ku sii noqonaya. markay imaadaan qaxba oo soo karni waa isku dhamaatay. wal fudeys ah lahaa. maasha Allah tabarakallah. sidaan qurux badan ku soo baxday waa ujeedin. jab yar ka soo qaaday oo hadda aydin tusaayo. waa ujeedin amalena quruxdeeda lagama sheekeyn karo. dhadhankana kaale iska arag. xalada kala kor aan kaga daadiyo filigtan aad iyo aad u qurxinaysaa bunida. maasha Allah tabarakallah. haddii aad jeclaysato waa jeclaysato, haddii aad jeclaysanina ay xalada jeceshaha ku quruxso dooqaada iska leh. muhiimada waxay tahay waxaad jeclaysatid inaad ku qurxisid. channelkayga marka kugu horeyso aad soo booqata haddii ay tahay subscribe ii saar, gambaraalka yar furo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba waan soo geliyo. wixii fikradeena ama ra'ayina commentigoosa ayuu reebi kartaa. insha Allah waa soo badin doonaa macmacaanada, cuntooyinka kala duwan, casiiraadka ka marno, isqurxiska, kareemooyinka oo dabiiciga ah, waxyaalaha wajiga lagu qurxiyo, dadka wajiga saliida leh, dadka wajiga aan saliida lahayn oo qalalan. insha Allah ayaantan ma soo gelinin wax isqurxis ku saabsan. insha Allah channelka wax badan laga bedeli doonaa. ha sugu waayina, coming soon waaye. haddana waxaa ila arki doontiin xalada sida ay u jilcan tahay. ay cuniga cuni karo jileeceeda, waayo wax taagtaagan oo qaleel ay maahan. ciyaalkiina ugu faa'iideeya, martidiina ugu faa'iideeya, nafsadiina ugu faa'iideeya. waa wax iska basiid ah oo waqti yar ah ku sameyn kartid. haddii aad soo gaartay fiidiyoga dhammaadkiisa waa kaaga mahad celinaya. aad iyo aad u mahadsantahay ku leeyahay waqtigaada quruxda badan. muuqaalkan muuqaalka xiginta ku kulmi doona waa anigu Cayuush Wadale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.